wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Somaliland Axmed Muumin Zeed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddiga khudaarleyda ee Somaliland iyo sidoo kale guddiga wax soo saarka dhanka beeraha kulankaasi oo lagaga arinsanayay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka iyo saameynta rabshadaha dalkaasi Itoobiya ka socda ay ku yeesheen khudaartii ka iman jiray dalkaasi Itoobiya wixii kulankaasi lagaga wada hadlayna waxa sharaxaad ka bixiyay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Somaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha khudaarleyda ee Somaliland Cabdifataax Axmed Maxamed halkan saaka waxaan ku kulanay oo mar dhaweyto shirku wada galnay khudaarleyda iyo beerleyda guddiga khudaarleyda iyo beerleyda isku jirta oo runtii aanu ka wada arinsanay xaaladda soo cusboonaatay oo dadku ay noocyo kala duwan oo fara badan u dareensan ama u kala turjumayaan inaan bal u yar iftiimino si waxyiin waxay u tihiin runtii wadanka aynu jaarkana Itoobiya inay khudaar ka iman jirtay khudaarta ka imanaysay Soomaaliland soo galeysay dadkii waxay u fahmeen in khudaar oo dhan Itoobiya inooga timaado marka waxaan rabaa ka wasiir beer ahaan inaanu u cadeyno dadka bal waxa dalkeena gudihiisa aynu la soo baxnay iyo waxa aynu u baahanay dibadda inooga yimaada inaanu dadka u cadeyno Itoobiya oo runtii ay shacabkeegu saan warkaan ku hayno beerleydu ay caawdeen baarlamaanka dalka Itoobiya dibadna ay horgeeyeen inay khudaartii wadamada ama Djibouti iyo Soomaaliland soo galisay la yareeyo anigoo doctor in badan inaan halkan isku naaynay wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda beeruhu halkan isku yimaadeen dhowr jeer anaga lafteeda aan ka wada hadlaynay sideen u bal khudaarta dalka kor loogu qaadi karaa khudaarta dibadda inooga imanaysan sideen u kantaroolna say ogaadaan Soomaaliland waxay soo saartaa Soomaaliland laakiin maxay dibadda ugu yimaadeen Soomaaliland laakiin maxay dibadda iyada lafteeda u dirtaa hadda Soomaaliland runtii shacab way dadaaleen runtii beerleyda reer Soomaaliland say u leeyihiin wadagtiino wax badan bay runtii 3 sano ugu dambeeyay waliba beerleyda aad u dadaaleen waxyaabaha aynu iskaga filnaanay inagu wadankan aad u soo saaro waxa kamid ah liin macaantii amba babayga amba lafka iyo kaashkor badan oo fara badan oo matalan bas ay kamid yihiin qajidoo kale liin dhanaanta waxyaabahaas waa waxyaabo badan oo runtii wadankeena si aad u badan uga soo baxay maxaynu dibadda hadaba maxaynu inagu keenaa inta badan dibadda inaga kabtaa dibadda inooga yimaada inta badan inaga waxa dibadda inooga yimaada waa ugu badan waa tamaada iyo kaabashka iyo baradhaha saddexda shay baa inaga inta badan Itoobiya inooga yimaada saddexda shay mararka qaar kood tamaado kale waqtiga jilaalka xeebaha ay aad uga soo go'daay oo waynu ka fakarnaa magaalada waqtiyada marka gaab baa jira inaga marka waxaan ka wada hadlaynaa saaka beerleyda sideen u buuxinaa gaabkan imanaysa inaan wax dibadda inooga yimaada aynaan beerleydu u baahan gaabka sideen u buuxinayna waan runtii ka wada hadlaynay iyo waxaynu u baahanaa Itoobiya haddii tamaada iyo kaabashka iyo baradho inooga yimaado inaga lafteenu mararka qaar kood Itoobiya waxaan u dirnaa muxuu ahaay basasha oo deegaanka Soomaaliland aad uga soo go'da iyo liin dhanaanta iyo qajida saddexda shay inagu mar baan Itoobiya u dirnaa waa xagga Itoobiya ka yaraadano kilinka shaad lafteeda inagu aan gaarsiinaa dib u dhig wax noqotay ay xeeyo runtii isaga laftiisu dhibaatooyinka ugu badan u geysay muxuu ahaay beerleyda sanadkii dhaweyto iyadoo runtii badan wasaaraddu dadaal badan samaysay oo diyaarad aanu keenay waxaan ka hadlaynaa kulan aan la qaadanay wasiirka beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadda noo soo dhamaaday iyo wixii uu ku saabsanaa waxa weeye maanta wad ogtiin wadanka waxa ka taagan xaalad muxuu ahaay khudaar la'aaneed gaar ahaan khudaarta qayb kamid ah dawladda muxuu ahaay dalka Itoobiya gaar ahaan baarlamaankeedu waxay shacbiga reer Itoobiya muxuu ahaay ay ka dalbadeen in loo joojiyo muxuu ahaay shayga tamaandhada oo aan muxuu ahaay wadankooda ku filayn taasoo aad moodo inay muxuu ahaay suuqadeennii saameyn ay ku yeelatay taa awgeed ayaan muxuu ahaay arrinka u qabanay
kadibna dawladda Itoobiya shaqaqooyin iyo joojin ay ka dhacdo saameyn ballaaran ay ku yeelato dadkii ganacsatada ahaa ee ku sugnaa suuqyada dalka marka waxa weeye in aanu muxuu ahaayay sidii loo heli lahaa shayga ka go'an ee muxuu ahaayay tamaandhado kala in la helo sida muxuu ahaayay baradhada waxyaabo fara badan oo imika muxuu ahaayay aynu doonayno in aynu muxuu ahaayay sidii aynu heli lahayn ayuunba muxuu ahaayay aanu ula kulannay wasiirka